si loo dardargeliyo howlgallada ciribtirka khawaarijta ee ku jira marxaladda nafbaxa ah madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta mar kale ku soo laabtay deegaanada furimaha ee uu ka socday abaabulka howlgallada ka dhanka ah khawaarijta. madaxweyne Xasan Sheekh oo ay galbinayaan kolonyo ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidanka cirka xoogga dalka ayaa ka degay bartamaha magaalada Raagaceelle halkaasi oo ay ku sugayaan boqolaal ka mid ah halyeeyada xaquudirarka ee macawisleyda deegaanka iyo shacabka reer Raagaceelle oo si farxad ku dheehan tahay u soo dhaweeyay madaxweynaha dalkooda. madaxweynaha jamhuuriyadda oo ciidamada u jeediyay khudbad isugu jirtay dardaaran dhiirigelin iyo guubaabo ayaa la wadaagay rajada dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan inay dhameystiraan halganka gabagabada maraya ee dalka looga xoreynayo nabadiidka al-shabaab. ciidankii dawladda waa jooga saraakiishii dawladda waa jooga anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda dadka ugu sareeyo waa kana waa imid qof maqan ma jirto oo la sugaayo gadaal jirta maanta waay kana waxa iga dambeeyo dhanna waa sugayseen wasiirada sugayseen janana sugay waa lidii wada imaana laakiin dadka aan ula saaranaynaa waa adinka guushiina ogaada guul Raagaceelle iyo guul maxaan ku raadayay warciisa iyo guul maxaan ku raad degaan maxamed muuse bas ma aha guushiina guul Soomaaliyeed waay meel kasto khawaarij joogto guusha laga keeno waa guul Soomaaliyeed haddii ay tahay mid Puntland ka socota ee buurahaas lagu dagaalamaya Daacish guusha ka timaada waa leen annaga iska leh. ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa soo gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe halkan oo maalmaha soo aadan ka hogaamin doona howlgallada ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab. mar kale ayuu laba lixaasiday dagaalka u dhaxeeya xaquudirarka Soomaaliyeed ee difaacanaya naftooda diinkooda iyo dalkooda iyo khawaarijta umuladooxa ah ee ku naaxa dhiigga muwaadiniinta Soomaaliyeed kadib isku daygii qariska xornimada ahaa ee khawaarijtu ay ku doontay inay ku carqaladeyso amniga iyo kala dambeynta gobolka Shabeellada Dhexe. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, degmada Cadale, gobolka Shabeellada Dhexe.